السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن عبد الرحمن عمر علي oo idin leh markale iyo muuqaal cusub channelka cilmi side maanta barnaamijkan idin hayno waxa uu noqonayaa barnaamij ku fasiraya dhammaan fariin qoraalada lagu soo qoro luqadda ay ku qoran yihiin inuu ku turjumo kaagana dhigo luqadda dalkaaga hooyo ee aad si sahlan ku fahmi karayso barnaamijkaas ayaan idin haynaa oo qof waliba fariin qoraalku soo qoro dalku doon ha ka soo qoro goobtu doon ha joogo si sahlan iyo barnaamijkan kugu fasiraya adoo isticmaali doonaan instruction ama qaabab aan ku sheegi doono muuqaalka gudihiisa channelka hala share gareeyo haddii uu kugu cusub yahayna subscribe saaro si aad u rukumato dhammaan casharada ama muuqaalada aan soo dhigno like saar si aad noogu dhiirigeliso inaan muuqaalada hore usii wadno haddii ay ku cajab geliyeen haddii wax ka qaldan yihiin dislike inoo saar barnaamijka aan hadda aan sheegayo marka aad rabto inaad isticmaasho ugu horeyn waxaa muhiim inaad soo degsato markaad soo degsanaysana waxaad ka soo degsan kartaa dhanka iyo Play Store-ka waxaad ka soo degsan kartaa dhanka iyo Play Store-ka adigoo ku qoraya ereyga aan sheegayo Tranit ereyga aad qorayso waa Tranit ayaad qoraysaa marka aad Tranit qorto optionka ugu horeeya ku soo baxay ku qoran tahay Hindi Translator meesha aad dhagsiinaysaa markaad dhagsiisana wuxuu noqon doonaa muuqaalka sidan meel ay ku qoran tahay install ayaad arkaysaa laakiin aan hadda open kaliya ku muuqdo aan install meel ay ku qoran tahay meesha aan install ayaa ku noqon doona install hadduusan ku shubnay laakiin anigu u shuban yahay hadda uma baahni sidaa daraadeed open ayaan iska dhahayaa oo barnaamijka hore u sii guda galaya markaan open dhahana wuxuu noqon doonaa shaashada ama barnaamijka aan ku guda jirno sidaas xigta ee aad arki doonto ayuu noqonayaa sidaan shaashadan ayaa ku muuqanaysa instruction ayaa lagu weydiinayaa instructionka lagu weydiiyo waxaad ka bilaabaysaa meesha ay ku qoran tahay badhanka cagaaran start ayaad dhagsiinaysaa xariijin diilanta cagaaran dan markii halka aad tagtana waxaad sii doodan doontaa ood beegsanaysaa accessibility ayaad dhagsiinaysaa waxbuu ku sheegayaan accessibility markaad gasho kadib meel baa lagu tusayaa oo lagu dhahay xariijinta dhanka bidix u dhaqaaji okay aad dhahaysaa barnaamijkan adoo cursor-ka baag uga laabanayo si meesha aad la rabo aad u tagto dan halka markaad tagto kadib xagga hoose waxaad fiirinaysaa meel ay ku qoran tahay install service meesha jaksi oo dhag ku sii fartaado si ay kugu furanto aadna u hesho meesha jeega lagu dhahay ujiid dhankii lagu dhahay ujiid ama gey okay markaad dhagsiisa halka waxaad ka arkaysaa Tranit oo ay labada gees ka xigto laba loof dhag ayaad siinaysaa oo qof ayuu hadda ku yahay ayaad ka dhigaysaa adoo jiidaya falaarti dhanka lagu sheega u jiidaya dan halka markaad tagto kadib muuqaal xayisiin ayuu galayaa oo ku dhahayo qaabka loo isticmaalayo calaamad yar ee weynaysa soo baxaysa xagga bidix hoos soo jiid qoraalka dulge wax lamid ayuu ku sheegayaa ugu dambeyn drag over ayaad taabanaysaa markaad drag over taabatana waxaa si toos u gudgalaysaa barnaamijka oo aad u sahlan aan isleeyahay in badan dadku wax way ka faa'iido doonaan si gaar ah waliba dadka luqadaha aadka u daneeya ayuu aad u anfacaya luqadaha kala gedsan haddii barnaamijkan aad fahamto qof waliba caalamka luqadda ku soo qoro garan kartaa okay halkan ayaa joogtaa meesha ay ku qoran tahay allow permission ay ku qoran tahay aad dhanka u jiidaysaa oo inta badan laakiin optionada hore ayuu la socday inuu ku saarma laga yaabo si automatic ah ku saarmayna adiga ayaa saaraya dan waxaa ku soo laabanaysaa welcome iyo ku dhaw barnaamijku ku soo dhaweynaya inaad barnaamijkii sida loogu talagalay ugu guulaysto iyo ku sheegaya marka halkaas aad joogtana waxaad samaynaysaa application kaad u baahan tahay inaad ku isticmaasho aad soo kicinaysaa wuuna kugu shaqeynaya barnaamijka marka halkan aad taagan tahay waxaad samaynaysaa badhanka off meesha ku qoran tahay waxaad ka dhiganaysaa on ayaad ka dhiganaysaa markaad on ka dhigato ayuu barnaamijka kugu shaqeynayaa halka waxaa kaga muuqata calaamad yar oo ku tusaysa markii aad falaar kore ee ku taala ama calaamad yar weynayso ee ku taala dhanka bidix ee kore aad soo jiido aad meel keento luqadda ku turjumaysa ay calaamadaas ay ku tusaysaa falaartaas waxayna ku jirtaa dhanka bidix ee kore ayay ku jirtaa inta badan luqadda hore oo uu baran yahay waa Hindi oo loo bedelayo English aad bedeli kara okay waxaan soo kicinayaa hadda barnaamij yar oo sida WhatsApp oo kale aan ku adeegsanayo barnaamijka aan ku isticmaalayo fariin qoraalkiisa in la turjumo ayaan soo kicinayaa WhatsApp aan soo kicinayaa markaan soo kiciyo marka hore wuxuu ii saarayaa luqadda Soomaaliga oo waxaan u turjumayaa luqadii aan aniga rabay in laga dhigo had programka uu saaray waa Hindi to Somali to Hindi uu saaray hadda Somali to Hindi uu saaray oo luqadii markaan bedelo waxay ii noqon doontaa sida aad hadda fahmayso had Soomaali halkan ii saaran falaartii aan soo qabanayo soo jiido waan ku dul aadinaya markaan ku dul aadiyo isla markii waxay isku bedeshay English waxay ii saaran tahay luqadda ii saaran tahay Somali to English ii saaran tahay Hindi waan ka bedelay Somali to English ii saaran tahay luqadii waxay isku bedeshay English qoraalka dhan wuxuu noqday English marka ka qaadana sidaad hore ku laabanaya markaad ka qaado sidaad hore ku laabanaya markaad falaarta qaad sidaad hore ku laabanaya inta badan waa isbedel kagama dhacay xogtii hore kugu taalay laakiin adiga lagu fasiraya hadii aad tahay qof luqadda Englishka ku hadlayo barnaamijkan ama luqadaha kale ayuu ku faa'iideynaya markaad ka laabatana oo aad ku dib ugu soo laabatana barnaamijka waa Soomaaliga hore ay dib kugu noqonaya channelka subscribe saar si share gareysay asxaabtu arkaan aad ku maasantahay
barnaamijkan waxaad la kaloo la kaashanaysaa barnaamij kale hore aan u soo dhigay ay ku qoran tahay ku hadal luqad walba adigoon baranin kaas wuxuu ka saacidayaa xagga fariin qoraalka inuu asiisi automatic ugu turjumo qoraal walba oo Soomaali ah ku qorto wuxuu ku turjumayaa English kan hadda aan soo dhignan wuxuu ka saacidayaa fariinta lagu soo qoray qof English ahaan hadduu luqad kale kugu soo qoro inuu luqadaada hooyo kaga dhigo labada barnaamij way is saacidayaan isu kaashan labadaba